بسم الله الرحمن الرحيم واد السلامي لمان مرت شرفته مروين كان كوب اللابو مدنياش الرجع يدك عالم كان نقف في السنايا وحنا دلنا هاي مركورة هبين ونكسن وحنا كل سلامة يا سلامة السلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxa badan oo waxa jira inaan is xasuusino u baahan marka aan caaw halkaan kale isugu nimid sida aan la socono cudurkan dilaaga ah ee runtii waxa waaye aan ka wada daawanay meel walba adduunka sida runtii waxa waaye ugu qayliyeen ummadda meel kasta ay joogaan runtii waqtigiina hadda u soo hurteen horta inaan taas isaga mahad celino oo runtii waxa waaye aan is xasuusino waxyaabo aad u fara badan oo runtii cudurkan dhibaatooyinka uu leeyahay laftirkeeda aan sahlanin markii dadkeena dad walaalo ah oo iswada jecel ama umad Soomaaliyeed waxaan nahay mataqana ehli iyo qaraabo ama xidid wada ah inaan runtii isu sheegno oo aan wanaag isu sheegno oo aan wax walba isfarno ayaa horta muhiim ah runtii cudurkan maanta idama dhahayo waxa waa gacmihiina sanitizer mariya laakiin waxa la socotiin waa laakiin in laga taxadaro waa wax muhiim ah inta aan barnaamijka u guda galin iyo qaban qaabada runtii cudurkan inaan ka hadlo waxyaabo yar ayaan rabaa hadaad dhagihiinaysiin kartaan runtii cudurkan 1400 iyo dhowr sano ka hor ayaa la sheegay aniga laftirkeyga ma ogeyn sheeqna ma ahay laakiin runtii baaritaan yar aan sameeyay waxaan soo ogaaday coronavirus in waqtigii nabiga iyo runtii waxba ducooyin laga soo saaray waqtigaas anaaba yaaba markii aan runtii waxa waaye baaray oo aan arkay waxaan dhaawar cudurkan 1400 ayaaba coronavirus jiray markaas aan dhahay waxa waa bilducooyinkaas iyo waxa waaye wax la qarsan kara ma ahan ina walaalaha la wadaagtid ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka joogaan aan la wadaagtid ayaa muhiim ah runtii cudurkan marar badan ayuu dhacay oo waxa waa sida la socotaan ducooyin badan ayaa ku soo ururay furuqa baraska waxyaabo aad u fara badan oo cudurro aad u xun laakiin isma lahayn cudurkan coronavirus ayaa laga hadlay waqtigaas iyo marka bal runtii waxa waa idin kama qarsanaayo ducadaas iyo waxa waa cudurkan si fudud ayaa lagu kala qaadaa maahan xoolaha laga ma qaado bini aadanka laga qaada qofka dhinacaaga fadhiyo oo affected ayaa ka qaadan kartaa marka laakiin waxa waa ilaahay wuxuu noo sheegay runtii waxa waa ducooyin laga akhristo cudurradaas iyo markaan arkay alxamdulillah oo ku farxay laakiin caaw waxaan go'aan ku gaaray barnaamijkan arrimihiis intaan u guda galin inaan ducooyinkaas idin la wadaago saddex duco marka saddexdaas duco runtii waxaan jeclaan lahaa inay barataan oo ay xifdisaan ducada ugu horeyso waxay tahay wa a'uudu bi kalimaatillahi taamaati min sharri ma qalaq tan labaad waxay tahay bismillaahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم marka wada taqaanin laakiin in la xusuusiyo waa very important marka really waxa waa marka maxaa cudurkan dilaaga xaggu kaga jira waa saddexdan duco tan ayuu kaga jira marka aad sheegay marka Allahumma inni a'uudu bika min al-baras marka baraski waa la sheegay waa arkaysaan wajanuni januunkana waa la sheegay wajudani judaankana waa lagu sheegay wax jira waa ma fahmaysaa tan kala marka oo viruskan ama cudurkan ku tilmaamay ama uu xaggu kaga jiraa waa marka waxa waa tan waxay leeyihiin wa min sayil aqsami marka tan ayaa lagu sheegay cudurkan coronavirus ka leeyahay ama cudurro aan la aqoon oo nooc hadda kadib imaad doono intaas aan kaga baxaya ina idin la wadaago barkay wax runtii la idinka qarsan kara maaha waxa marka hore ugu mahad celinayaa shirkan qaaliga ah dadka soo qaban qaabiya xafladan quruxda badan aan ku taageereyno magaca ka arkaysaan taageerada shirweynihii ama wada tashigii ka dhacay magaalada Muqdisho Europe North America Melbourne ka dhacay runtii laga taageera waa mid la mid ah oo aan dadna lagu dhibaateynaynin ummadna ayadaha ka tashanaysa wax dhibaato ma ahan marka runtii dadkii soo qaban qaabiya oo caawa halkan wada joogo oo runtii ka soo shaqeeyay heerkan soo gaarsiiyay juhdi badan soo galiyay inaan u mahad celino oo runtii waxa waa u qirtaan wanaaga ay sameeyeen ayaan idinka codsanaa marka hore maxay tahay marka ujeedada aan isugu nimid aan u shirno marka ujeedada aan u nimid aan u shirnay runtii aan halkan isugu nimid waxay tahay waxyaabo aad u fara badan oo u baahan in la xasuusiyo oo runtii maxay tahay waxa naga maqan anaga aan raadinayno oo xuquuq ah ummad inta Soomaaliyeed ee magaaladaas degan magaalooyin kala degan wali waxyaabo badan oo aan tabanayna ayaa jiraan marka
maxay tahay waa marka mar walbana waxaa laga hadlaa oo la xusuusiyaa oo shirar meelo badan lagu qabtay maqaamka Muqdisho marka waxaa la yaab leh ama runtii waxa waaye dad badan ay isweydiiyaan magaalada Muqdisho oo ah runtii caasimadda dalka Soomaaliya sababta aysan ilaa ay hadda u helin xuquuqdeeda siyaasadeed aysan ugu helin aqalka sare iyo aqalkii waxa waaye hoosaba marka taas ayaa mar walba waxa waa dadka ay ku noqnoqdaan oo ay isweydiiyaan kuwaas ama taasoo u baahan runtii waxa waaye ama dadkaas 4 milyan oo u baahan matalaad waxay raadinayaan waa xuquuqdooda waxa ka maqan marka dawladda Soomaaliya iyo runtii maamul goboleedyada dhisan ama haatan dhisan runtii waxa waaye miisaaniyadda ka soo baxda magaaladaas Muqdisho ayaa loo qoondeeyay oo waxa waaye sida aragteen 250,000 dhaqaalaha canshuurta dadkaas laga soo ururiyay xoog maaladka ah ayaa loo qoondeeyay bil walba 250,000 budgetkii lagu celin lahaa dadkaas ayaa gobolada kale loo qaybiyaa marka runtii waa xaq darro hala siiyo muxumo wadankan ba hadda gobolka Ontario aan deganahay taqli aad u fara badan ka soo baxo gobolada kale waxa waaye awood badan aan lahayn waa la siiyaa laakiin waxay leeyihiin matalaad dad badan waxay isku qaldaan Washington iyo Ottawa kala bal kala fiiriyay hadda marka magaalada Muqdisho gobolka Ontario ay ka tirsan tahay Ottawa waxayna leedahay xuquuq marka arrimahaas dad badan oo expert iyo caawi jooga ayaa ka hadli doona ma u guda galay waana runtii dad badan ala fadhiyo oo runtii arrimahaas si weyn uga hadli doono laakiin se waxa runtii arrintan yaa mas'uulka ah waa maxaa agajiidkan maxaa dhibaatadan meeshan keena waa marka runtii waxa mas'uulka ah madaxda ugu sarreeyay dawladda gaar ahaan waxa waa madaxweynaha ama baarlamaanka maxay u haystaan waa arrintan maxay runtii waxa waaye ummadan xuquuqdooda ama xaqooda ay u sii waayeen maadaama ay lacagta ay ka qaadaan ay gobolka kale maamul kale ay siiyaan marka runtii waxa waa si yeeshee madaxweynaha sidiisaba waxa waa ma eedeyna laakiin se waxa moodaa in uu isku qaldaayo maamulkii federaalka ahaa iyo maamulkii gobolka Banaadir siyaasadiisii inuu isku qaldaayo taasi tudna waa la garanaa markii meeshan Soomaaliya waxay ka baxday kumeel gaarnimadii 2012 maamulkan iyo nidaamkan arkaysaan ama dawladdan federaalka lagu leeyahay waxay soo bilowdeen 2004 shirkii Eldoret ka dhacay marka shirkaasi Eldoret ka dhacay waxa lagu soo diyaariyay dawlad federaal oo kumeel gaar ah iyo dastuur kumeel gaar ah 2012 dastuurkii kumeel gaarka ah wali waa qabyo laakiin dawladda kumeel gaarka ahayd waxay ka baxday kumeel gaarnimadii maxaa dastuurka marka ilaa ay hadda qabyo ka dhigo marka in la isweydiiyo waa dastuurka waxa ilaa hadda uu qabyo u yahay because waxyaabo badan oo ay xuquuq ay ku helayso magaaladaas Muqdisho ayaa ku qoran oo runtii waxa waaye maqaamkii ayaa 275 xildhibaan ay gacanta ku haystaan oo 275 taas xildhibaan haddii maanta ay fasaxaan noloshoodii ayaa ciriir galayso marka noloshoodii haddii ciriir galayso dastuurka ma dhameystiraan marka dastuurka haddii dhameystiraan shacabkaas iyo ummaddaas xuquuq helayso xuquuq badan iyo aayahoodana ka tashanayaan marka arrimahaas ma sii galay detailkooda dad badan ay iga dambeyn doono laakiin waxaan idin sheegaa caawa arrimaha ugu muhiimsan aan ka hadlayno annagoona dad dhibaateenin dad xaganaynin inaan runtii waxa waa taageerna shirkaas iyo inaan ka hadalno xuquuqda ka maqan dadka walaalaheena dhibaataysan annaga wadan dimuqraadi oo waxaan ku noolnahay runtii aad aragteen oo aan codkeena waxa waa si sharaf aan ku dhiibano intaas oo waxaan dadkeena la doonayno maxaa marka kulalkan hadda keenay kulalkan hadda waxaa keenay shirkii ugu dambeeyay waxa waa xamar ka dhacay waa arkayseen madaxweyne cali mahdi inuu waxa waa miiska garaacay maxaa ka garaacsi waa maxaa dhariga kulka ka keenay waxaa ka keenay war magaaladii waxa waaye asagoo heer madaxweyne soo noqday asagoo waxa waaye maanta maqaamka ugu sarreeyay dalkaas ka gaaray ayaa dariiqa waxa waaye ID kan lala taagan yahay oo meeshuu maraba waxa waaye ma socon kartid xagga ma mari kartid leeyahay cali mahdi dagaaladii soo xataa heerkaas cara ah xataa ma gaaran dii runta laga hadlo maxaa kale oo dhacda marka in waxa waaye waxaan wuxuu isiray ciyaalkan ku joojinaya bal waxa waaye waa wax ka yimid madaxweynuhu sidii kula hadlay madaxweynaha markuu la hadlay wuxuu yiri ID qaaduu yiri waa markuu waxa waa carada tii walad uu gaaray iyadoo taas ay jirto waa la socotaan in waxa waa uu gaaray haddana waxa waa shirkii iyo qabanqaabadii iyo wada tashiga ay wateen in la yiri ma qabsan kartaan marka arrimo aad u dhaadheer waa kuma sii dheeraana laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan taageerno shirkaas xamar ka dhacay iyo kii meel walba ka dhacay inaan hadda runtii waxaan u soo istaagay inaan u mahad celino dadka qabanqaabada iyo juhdiga iyo waqtiga soo geliyay meeshan waana mahadsantiin